hadalkiisa mana doonayo ficilkiisa waxa weeye haddii uu hadalkiisa ku dhiiranaanayo sida ku taagnaanaya haddii kaleba isaga u taalla inuu cafis weydiisto number 1 oo martida ilaahay inuu cafis weydiisto oo edab darrada iyo hadal jilaaca ah ee daciifka ah ku hadlay marka anagoo joogna ilaahay inuu cafis weydiisto waa labo number 2 inuu bulsho weynta Soomaaliyeed raali geliyo ku warheer baabaji waxa kan muuqaal baldaawo baan ku yiri waxa kan wax nin weyn ku hadlo ama nin aqli leh ma aha يعني نيجي مسك حديث ساعة لا بيجي أبو وحن أنا واحد سهل أبو أركي لكن حافظت لنا الله يقصد دري وحن حاسكي عروتي أو يسود دري حتى قلالي يقلح حمادين أنا بشون هانتي وأنا عرضي لكن وحن جالسين أنا عرضي إذا حكمي ما دام ماشي جو أي هاي مكة لا بيجينا وبدأ إسكح ملاوي وحسب بك على جالاو وصح هذا سيدنا وكلا تقنيا وحن كل ورياه رورتي baan waxa ku yiri warheer baabaji waxa kan muuqaal baldaawo baan ku yiri waxa kan wax nin weyn ku hadlo ama nin aqli leh ma aha yani ninka maskaxdiisu saahay baabaji abu waxaan aniga wax sahal aan u arkay laakiin xaafadda dhan alla iga soo diray waxaan xaaskii iyo caruurtii ay soo diray hadda gadaal ay igala xumaadeen marka almuhiim fariid anigu midaan oranayo waxa weeye nin oram ogolaaday ama bad ha ogolaado ama bari futadiisana uu ogolaan lahaa maya aan walaalkay hadalkaan dhameeyo saas dhihin ku soco aan ku cisto way cisaleed aan ku cisto haye bajay aniga ilaahay ma ila qabiil ma صح waa walaal Soomaaliyeed weeyaan ilaaha qayru maanta qofka aniga wax iga sheega waxaan ka nacbahay qofka baabajay ama qurux ku dhiigla ciil dareensiya wallahi alladhi la ilaha qayru maanta waxaan ka nacbahay ninka baabajay ama qurux ku dhiigla ciil dareensiya labadalkii waxaan hadalkii ku xidhay waxa hadalkii yahay dayleefkiisa waa daawanayay 5,000 baan bixinayaa iyo waxaan bixinayaa 5,000 bixin makaanka ilaahay nooga yeeray waxaanu hor fariisanayo mana doonayo hadalkiisa mana doonayo ficilkiisa waxa weeye haddii uu hadalkiisa ku dhiiranaanayo sida ku taagnaanaya haddii kaleba isaga u taalla laakiin bataatan maba hor fariisanayaba adigana walaalkay isku daygaaga iyo ixtiraamkaaga iyo hadalkaaga iyo qaabkaada wax isugu dayday oo kugu bogaadinaya oo tumaasantay adiga iyo bulshada Soomaaliyeed ee kugu jirta horta soo galay يا ما ضمنت كوسو عدالة ضمنسن هرتا تن إنا نكان كهرجيو تا قصب معهم أو إنا ها أما ما يترى وأسو سعودي تا أنت اللي جارين وحير أو ولكن عني روحي أقل دير إيجي فانتي عن وحير ما عن مرة عن ربع أنا ما عرفت عن حوجاك هجاي البحيو هرتا مركي عد ركز هستو عد لحقشو عد أكل جرقادو قصب واي إعلان ما أهاني سدو والله يا أبا علي الروح هاي أنا هل أنا عكست إنه مو فاهم لكن أنا وحن كل شيء عروس علي بجي وإي سمنتين رجس وضع عياره ومدود مداليو إنترنت كمان ركت عنك كا وصاحبها النهاي هرت حاشا لله عروس أنا كاجا أحده ولي هالسودون ولا الكي تم صببت أنو إري هك دعوة كاه waxaan daawaday muuqaal labadiina asaarantihiin ee aan dhahay istaghfirullah u saaraya ninka la yiraahdo baabajay u saaran yahay yarkii cali cadaawana uu su'aasha weydiinayo taa mid ka horeysay oo kaliya aad shariixaysidna waa arkay oo arinkan aan ka hadlaysay adeysay yani rag cibaado ilaahay u baxay in maaragtay uu khariisiin ku tilmaamana waa arkay marka waxaan ka waday liidma adi aan ku liidaya ma ahaaniyo adiga maaragtay nin oo maaragtay ka calaacalamatiidii kama wadine maadaama aan muujinaysay dee hadalkaas inuu adiga kaa caraysiiyey qaladna aad u aragtay unbaan ninkaa su-aasha u weydiiyey waan u iri labadaa nin ee walaalaha waxay qalad u arkeen hadalkii aad ku hadashay niihow wax ka dheh waana ogeed maanta dhamarkaa la murmaayay dhanka wanaagsanaan wax u waday oo waxaan lahaa waxaan hadda meel fog may gaarin
yaasiinna waxaa waaye nin walaalo waaye, baabajeyna nin walaalo waaye, aruushow adna nin walaalaa tahay. waa waxaad laqi kartaan yacni haddayan jirin dee biyaha hoostooda ayan wax kala jirin wallaahi tan ma weyno. ani asaga maalin hore meel dheera wallahi isla gaarnay, haddana saasay tahay isla markiiba waxaan iri ani geemkaas intaan joogo aan ciyaarayo xifaaltanka meeshuu ila gaaro miiskaasaan uga tagaa. intaa wixii ka dambeeyo lifeka markaas aan soo fariisto qof alaala qofkii la dheelaya afkeyga iga filan. hadduu lifeka dhammaadana waa faatal awaano, hadal la is yiri wuxuu sheegaya malaha. marka walaalkay waxaad joogtaa meel barakaysan, naftaanna manaloo dhiibanin, naftaan manaloo dhiibanin. fartaas yar haddee malax kaa gasha caawa ma seexanaysid. marka walaalkay anigu waxaan qabaa yaasiin, waa ogahay xanaaqa hadda kaa muuqda mid dadnimadaada ka turjuma ma aha, waa cafiis badan tahay. xanaaqayaysu kula tegin, deji bahasha, ninka waa soo qabanaynaa. walaalkeeyow gar qaado oo bahashaa ku soo dhammaatay inaad iscafisaan. walaalkay midaan kuu sheegaya saxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ay xaasaskooda canaananayaan ma jecleen inay ku canaantaan maka dhexdeeda. sax waay, way kala bixi jireen maka. waxa ilaahay mahadiisa anuu hadda inaan jiddo joogo maka wax badan bay iga celinayso bikulli ixtiraam. idigoo ilaahay ku bari karo wax weyn ku weydiisan kara aadanaha ku canaanan bay iga ahay. waa tan kale iyo aniga hadduu qofku ii gafo nin baanay amaan cafiyo amaan diido, yacni de aniga wax ii yaalay wax iga go-atoona wey. laakiin 3 waxyaabood oo nin raba uusan ka kaftamin baa meesha maraysa. number 1, maka ma aha tuulo oromo ama magaalo la dhayarsan karo, waa Makkatul Mukarrama, waa meel ilaahay ishaartay iyo meeshuu nabigu uu ku dhashay iyo meel barakaysan. qofku inuu ku xishoodaa mudan. sax hadallada deelqaafka ah ee naxuusta markuu ku hadlayay kacbada ilaahay iyo muslimiin halkaa joogto oo khayr u joogto mid ka xishoonaya ma noqon. taas waa edeb darro iyo waxaan magaranaysaa ay qaadanayn. waa tan labaad, baabajey waa aabe, waa marti ilaahay marka laga yimaadana waa martidayda. aniga martidaydu kusoo xadgudbay ma qaadanayo. waa in martidayda marka hore raaligelin la siiyaa, la cafis la weydiistaa, lagu ixtiraamnimo iyo dhaqan iyo diin iyadoo la ishaaranayo. suuranaageed iyo haddii laygu yeelo iyo waxa uma baahnaan qodob rageed iyo uudaan ka hadlaya. baabajey haddii uu raalli la geliyo oo la magaranaysaa cafis la weydiisto oo ninkaas uu dego, aniga ninkaas wuxuu ku qaboobayaan ku qaboobaya, waa nin gurigeyga jooga. waa tan labaad, anigu niyo baddayda iyo berigeyga kama kaftamo. mid ii dhow isinkayga, ugaaskayga, aabbahay, walaalkay kalama kaftamo. nin amxaare leefleefaya, amxaare iska gadgadaya, weji aan ku hor fariisto male. marka 3 qodob aan wato waxa weeye baabajey inuu cafis weydiisto number 1 oo martida ilaahay inuu cafis weydiisto oo edeb darrada iyo hadal jilaaca ah ee daciifka uu ku hadlay maka anagoo joogna ilaahay inuu cafis weydiisto waa 2. number 2 inuu bulsho weynta Soomaaliyeed raali geliyo ama inuu orom yahay u cadeeyo. ninka haddaad intaa ka hesho baabajey uu raali geliyey ilaahay yuuna suuran waxba hadalka wuu yiri uu bareero maka iyo ilaahayna dambi dhaaf uu weydiisto. tan saddexaad oo bulsho weynta Soomaaliyeed inuu raali geliyo habeenka ilan laqdabada iyo carada waxa keenay oromo u xanaaqay. horta mid